hawada wasakhaysan waxa ay sababtaa hoos u dhac ku yimaada caqliga aadanaha. Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sababto hoos u dhac weyn oo ku yimaada caqliga aadanaha. Cilmi baarayaasha oo ka sugnaa Shiinaha ayaa waxa ay daraasadooda ku sameeyeen sambalo laga soo qaaday imtixaano luqadda iyo midda xisaabta oo ay galeen ilaa 20,000 oo arday oo da'doodu kala duwan tahay. Intaas oo la ururiyay. Walaal waxaan ka codsanayaa in kanaalkan aad subscribe noo saartid. Barbardhigeen natiijooyinka soo baxayay iyo heerka wasakhaynta hawada ee xilligaas. Waxayna ogaadeen in haddii uu qofku ku noolaado muddo hawo wasakhaysan ay badan tahay khatarta soo gaadhaysa maskaxdiisa. Cilmi baarayaasha waxa ay sheegeen sidoo kale in xogta ay heleen loo isticmaali karo dunida oo idil.